السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت شرفت له أدبان إذن سلامية كسو دواد عشر كان كقيمة هولي أو كصابسان سيدات إسكاك حير لهد أبليكيشن هذا كوتشيرا موبايل كان إني حكت استعمال كاد استعمالي سيدا إلو داغان فيسبوك runtii arrintaas oo aan dad badan aad uga warhayn gaar ahaan dadka isticmaala social media gaar ahaan Facebook ila socod wanaagsan aniga waxaan isticmaalayaa laptop baan ka isticmaalayaa gaar ahaan Google Chrome baan ka galay Facebook-ayga markaad saas oo kale kugu soo kaca Facebook-aaga toos waxaa u tagaysaa account meesha qorantaa calaamadan sidaas ah kadib waxaa sii tagaysaa setting and privacy kadib waxaa sii dooranaysaa setting markuu ku soo kaco your Facebook information baad ku dhufanaysaa kadib waxaad leedahay waa raadinaysaa off Facebook activity view waa leedahay waa yara sugaysaa intuu ku soo kacayo then kuwan applicationadan runtii applicationadan telefoonkeyga ku jiraan waan isticmaalaa then xogta waxay la wadaagaan Facebook runtii anuu aan ka warhayn then marka koowaad waxaad leedahay clear history waa iska clear garaynaysaa mararka qaarkood waxaa dhacda clear markaad tiraahdo inuu ku weydiiyo waxa la yiraahdaa password marka Facebook-ga passwordka dib u gelinaysaa clear markaad tiraahdo waa ka saartay applicationadii waxaad leedahay manage your Facebook off activity manage markaad sii tiraahdo waxaad leedahay manage future activity waxaad leedahay haddana manage baa sii leedahay waxaad leedahay turn off baa leedahay oo waad iska xiraysaa haddana turn off baa sii leedahay nabaday waa ka hadda uu ka xiran yahay oo applicationada aad isticmaasho mobile-ka ama daily-ga ama weekly-ga u isticmaasho ama mar walba xogta lama wadaagayaan Facebook isticmaalka aad isticmaalaysid waxaan u maleynayaa inaad aad uga hesheen fadlan like and subscribe sara haddii aad casharkan uu aad ku qanciyo si aan u soo sameyno casharo badan oo runtii aad iyo aad muhiim ugu ah dadka xiiseynaya arrimaha technology-ga aad baad u mahadsantiin